wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta deeq gargaar oo iskugu jira sariirii joodariyaal waxay gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee magaalada Jowhar. Ibrahim Cali Nuur ayaa Jowhar ka soo hadlay. wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta agabyo kala duwan sida joodariyaal sariiro barkiman waxay gaarsiiyeen xarunta dhimirka magaalada Jowhar ee Bilqeyr halkaasi oo ay ku jiraan tiro dad ah oo dhimirka ka xanuunsanaya waxaana ugu talagaleen in ay ku jiiftaan dadka ku jira xarunta dhimirka ee magaalada Jowhar. waxa ugu horeyn goobta ka hadlay isla markaana u mahad celiyay rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe iyo wasiirada ka tirsan maamulka Hirshabelle maamulaha guud ee xarunta dhimirka ee magaalada Jowhar Jamcaale Maxamuud Hilowle. waan ka mahad celinaynaa waxaan leenahay inta aad keenteen bedelkeedu khayr Allah idin siiyo jazaakumullahu khayran. waxa kale farxad noo ah inay nagala soo qayb galaan xildhibaanadii madaxdeena wasiiradeennii inay nagala soo qayb galaan guddoonka deeqdan mataqaanaa maxaa la dhihi jiray soo gaarsiiyay isbitaalka dhimirka ee Bilqeyr. waana arrin ku dayasho mudan. dhinaca kale gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe Ciidiid Maxamed Cabdulle ayaa sheegay in ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe inuu la wadaagi doono baahiyaha ka jira xarunta dhimirka Bilqeyr ee magaalada Jowhar isla markaana uu rajaynayo in ganacsatada gurmud ay u soo fidin doonaan. mataqaanaa wax uun in la isdhiirigeliyo iyo dhiirigelinta aad noo sameeyaysiin oo nooga mahad celiyaysiin oo ku mahadsantihiin intaan ka badan ay naga mudan yihiin dadkan meeshaan maalinta imaanaynay waxa waaye mataqaanaa siday aheeday annaga mataqaanaa caloosheennu gadoontay wax allaale iyo wixii karaamkeenna ayaan maanta soo gaarsiinay tanna uguma simayno waxaan rajaynaynaa inaan raadinno ka ganacsata ahaan inaan raadinno sidii meeshaan aan isbitaalada caadiga ee dadka dhimirka ay ku nool yihiin si u yaaliin inay oo magaalooyinka ka jira inay noqdaan. ugu dambeyn waxaa goobta hadallo ka jeediyey wasiir dowlaha wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka maamul goboleedka Hirshabelle Saadiyo Maxamed Nuur iyo wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Hirshabelle Maxamed Yuusuf Culuw inaan ku soo booqanno xaruntoodii caafimaadka. arrintan waxaa mahaddeeda iskale Ilaahay waxaa isoo gaarsiiyey dhalinyarada horseed oo ah dhalinyaro aad iyo aad iskugu xiran dhalinyaradoodii xaafadii ka timid oo xanuunsaneed intaas la tacaalayay waxay dhaheen maamo dhibaatadaas ayaa meeshaan ka jirto. anigana waxaan u gudbiyey Ciidiid oo markaas xataa xil aan haynin oo loo dooranin iyo Maxamed Cabdiqaadir Mudey oo ah dadka dibadda ka yimid oo deegaankan u dhashay. shirkadaha sidoo kale iyagana waxaan ugu baaqayaa in ay shaqadan oo kale ay qabtaan inay sadaqeystaan hantidooda waa laga baxayaa adduunkan waa laga dhimanayaa marka wax walba haystaan waxaan dhihi lahaa dadka nugul u baahan maanta aan la gaarno waxay idin noqonaysaa sadaqa jaariya insha Allah. dhinaca kale waxaa maanta si rasmi ah xariga looga jaray xafiiska rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe. Ibrahim Cali Nuur TV Universal Jowhar.